General Abuukar Xaaji Warsame Maxuud oo ah hogaamiyaha golaha kacdoonka gobolka Hiiraan ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay taliska golaha kacdoonka gobolka Hiiraan Xelgaal. Shirkan jaraa'id ayaa ku saabsanaa 48 saacadood oo loo qabtay dadweynaha kaga sugan Hirshabeelle magaalada Beledweyne Yuusuf Axmed Xagar Dabageed iyo sidoo kale taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhixiso. balse General Abuukar Xaaji Warsame Maxuud ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay ka codsadeen in wax dagaal aysan soo qaadin ilaa ay jawaab kaga keenayaan dadweynaha Hirshabeelle kaga sugan magaalada Beledweyne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياش شرف كله وسلام يا كو هيران جو يكو انت صحيح دير وحواي ولكن ما عنده ويتوها شباب عقب بعض المقالة وحا أرنتاس ساكي مركب ديار قروبي يعني أنت وحكا قبل وياسي dhaqanka ee magaalada ayaa igu hor yimid oo yiraahdo karo dacwan wadnaa howlan wadnaa sidii Hirshabeelle inooga bixi lahayd waxaan ka codsanaynaa dhowr maalmood inaad dib noogu dhigtid arrintan saakay balanteedu waxay 48 saac markay dhamaato inaan shaqo ka qabto waana ii sahlineed shaqadaas aan ka qaban lahaa waana ii muuqatay laakiin odayaashii ayaa hor istaagay oo yiri nookaadi muddo gaaban gudaheed annaga Hirshabeelle isaga saarayno waxaan qoraynaa dacwooyin waxaan qoraynaa petition dadka magaalada jooga inuu raali ka ahayn Hirshabeelle oo inaga baxdo sidaa daraadeed anigu waa qancay odayaasha warkoodina waa qaatay in hadda dhib dhaco oo dhiig daato faa'iido qof ay u leedahay ma jirto laakiin nimanka Hirshabeelle waxaa ka go'an in xawaalo uu isdilo dhiig xawaalo meesha ku daato dhibaato ay dhacdo anigana waxaan doonaynin waxa waaye in xawaalo kala dilo laakiin waxaan doonaynaa sidii tartiib aan isaga saari lahayn Hirshabeelle inaan falankeed qabanno siyaasad aan isaga saari lahayn aqli aan ku saari lahayn maslaxa aan ku saari lahayn wadajir aan ku saari lahayn okay Hirshabeelle hadday naga baxda ka bacdin annaga reer Hiiraan aan la yiraahdaa meel walba adduunka joogaan waxaan isaga baaqayaa Hirshabeelle waa socotaa waana dhimatay waxa u harayna wax yar waaye intaasna haddaan dhammaystiraynaa waxaan reer Hiiraan ugu baaqayaa inay Hiiraan inta iskugu yimaadaan Hiiraan istiil la dhisto meel laga soo wada jeesto intaa waxay dheer waaye shaqaaqada hadda xamar ka socoto shaqaaqada xamar ka socoto waxaan leeyahay dhibta xamar kaliya kama socoto gaday ka socotaa waxay ka socotaa mudug waxay ka socotaa Hiiraan waxay ka socotaa Kismaayo waxay ka socotaa Puntland gobolada Soomaaliyeed oo dhan dhibta taallaa waxaan leeyahay marka adeerkay hadda ka hor wuxuu yiri ciidiid garle cali garle anuu ma dhahayo anuu waxaan leeyahay farmaajo adaa gal daran intaasoo umadeed oo Soomaaliyeed waxa ay maanta la qaylinayso inaad qaadato waay maslaxa inaad raadiso waay waxaan ku leeyahay adiga maanta hubkii iyo ciidankii haysta shacabkii shalay ku soo doortay halaynin hana u leynin 3 nin ama 4 nin oo mucaarada ka fiirsa arrintaas intaa waxaa ii dheer waxa waaye haddii lagu heshiin waayey doorashadii oo gobolladii iyo adiga dhib taagan ay noqotay waxaan leenahay annagoo reer Hiiraana annaga maslaxada gelayna annaga hawsha kala furayna annaga ayaa Soomaali badbaadinayna maanta diyaarna waa inaan badbaadino haddaad diido mar labaad adaa galdar qaado nabadda Soomaaliya lagu soo dabaalinayo taas intaasaan leeyahay midda kale waxaan leeyahay dagaalka wuxuu u muuqdaa dagaal qabiil nabadoon iimaan ugaas nin siyaasi ah inta aan leedihiinba waxaan idinku casuumayaa Hiiraan hala yimaado waddanka shaqaaqo uma baahna nabadgelyaan ku dabaalinaynaa wax walba waxaan idinku casuumayaa Hiiraan mar labaad imaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.